Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ku dhexmaray ciidamada Kenya oo ka tirsan howlgallada midowga Afrika oo AMISOM iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dagaalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen saldhigga ciidamada ka tirsan kuwa Kenya ku leeyihiin deegaanka Cabdalla Biroole oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Dadka deegaanka Cabdalla Biroole ayaa waxay sheegeen maqlayeen dhawaaqda rasaas isku adeegsaday labada dhinac sidoo kale uu jiray khasaare kala duwan oo soo gaaray labada dhinac iyo rayida. Sidoo kale dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen cabsi badan soo wajahday intuu dagaalku socday maadaama ay ka baqdeen qabeen in waxyeelo ka soo gaarto dagaalka. Wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya deegaanka Cabdalla Biroole ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegeen ciidamada Kenya deegaankaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan maadaama saldhig ay ku sugnaayeen la weeraray. Maxamuud Axmed Maxamuud Shaasha telefishinka Sum News Muqdisho. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.